dadkaasi waxay ahaayeen dadkii maxaa la yiraahdaa ka soo qayb galay maxay ahayd filimkii dhig ama dhaqo ee Copenhagen lagu qabtay aad iyo aad baan maxay dadku ay ugu maxay ahayd faraxsan yihiin filimkan oo ahaa filimkii koowaad ee Nabil uu sameeyay oo qaadayna sanadkii markayna dhaafay Oscarkiisi aad iyo aad bay dadku ugu faraxsan yihiin anaga lafteeduna aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay qoladeeda kamaradu maxay ahayd Nabil film fiican baa sameysay halka ka sii wad waxay bariyahan ma daawan film noocaas oo kala amba sideedaba hore kulli aanu ma daawan qabyo iyo wankiiba ayaanu aragnay marka kulli aad buu uga fiicnaa aad baan ugu faraxnay kulli waxaan maleynayaa inuu wankiisi ahaa tuugiisa trigiisana inaan nolol soo doono insha Allah maanta halkan waxa inoo soo dhaw waxa weeyaan abwaankii reer Copenhagen oo aan weydiinayno dhowr kelmadood xeef ku soo dhaw filimka sida aragtaa والله فيلمك والله مرنا وقصل مرنا وفرحات مرنا ونحدين مرنا وشك دبا كارلسا وواحد كتاجر كواليتي كتاجر دب كتاجر يوروب أما قربها كتاجر ديك أما دقو رايد أبى الغمرس أديان وأنا ما سنت فيلمك إن وحيل بدل بكور معي مركي لوفيريا إن الصومالي ده دقنك كجران يصير ودقمان وحيل بدل يسوى شعيين دتك فيلم السمي إن الترياشنا وحوم لنا سفي عنا وجلنا فيلم يعني قرض يحبك كمان أركن فيلم وحوها هاي تيجا كورن حاجة إن قبل سيدو مثيل كورن والله أنا قبل ده she was good يويلك كلا تمه دراسة جنا show time definitely عادي نكاس أنا يرك كلا سجنا مح سيات أو فيلم كجلاء نكاس عادي مان مركا فيلم عادي مان أوكي ما سنت أوكي فيلمكم ما فينا هذا ما غيت تقول توماس ولا من ده ما غيت تقول أوكي حتى سيدو كده ما فينا بين مود إيه وبين مود يا والله فيلم وناكسنا ما شاء الله فيلم وناكسن بوها إن كسرنا نقول شعلان لها دليرتنا يفهم مثلا لكن كسرنا شعلان لها في سومالي أنت بدل لقوا هالله تذكر قارنا يسوون وناكسنا في سومالي لقوا هالله يوي وناكسنا كور إنا كان فيلم كسبيه كور ومركي كواد فيلم كسبيه ما حد قيمة له هذا 1 to 10 هذا قيمة له والله 1 to 10 إن لقوا قيمة ما هو بيكوس واني رجعني ما بدن أو ما أنت سميه سيدي وفلا يقولوا قبل لها إن وبلشة الصومالي ده واحد يبيس سو وصاب بندقة مركز ساماركا والله مركز واحد واركاني رجعني ماله كور إن هذا كوسو جبيو إن قبل دي أرسلت هيد قبل كلا سحبت دي أي رير كده نكبر برينسي سو أركتها قبل ساسو كلا محي هذا إن حاجة عمينادة waxaa muhiim ah in qofku marka uu guurka ku dhex jiro in uu u fiirsado hadalka oo waliba si wanaagsan u shaandheeyo ayaan anigu oran lahaa marka gabadhu say markii dambe arinta u soo baadhay ayaa wanaagsanayd oo ku tusaysa in aan qofku uu qalad sameyn karo ama sax u sameyn karo marka saaniga la muhiim waxa la muhiim in qof kasta qiimaha uu guurkiisu leeyahay weego taasna aad ba mahadsan Axmed haddana waxay nala joogaa halkan waxa weeyaan qabaqaabiyihii dhamaa filimka dhiga ma dhaqo ee Copenhagen ku soo diyaar garay waa promotionkii weena waa Maxamed Shukri waxaan ku leeyahay ku soo dhaw ma santa Cabdirasaaq Maxamed Shukri aniga oo garan kara hawsha ay leedahay isku soo diburidka iyo qabaqaabinta iyo sida uu helita bal waxaad iga yar taabataa sidii aad hawshan ay kugu dhalatay iyo waqtiga kugu dhalatay in aad Copenhagen ugu soo riixdo film qaadaheena weyn maxay ahayd Nabil assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan mahad celinayaa saaxiibkay Nabil iyo kuriga la socdo oo suurtageliyay inay macnaha iga aqbalaan martiqaadkan u suubiyay magaalada Copenhagen waxaan kaloo u mahad celinayaa dadweynaha degan magaalada Copenhagen oo mataqaanaa si sharaf leh ugu soo qayb galay waqtigana dooray saas ay nagu macnaha alla marka hore ku soo dhawaada Copenhagen Maxamed Shukri filimkan waa daawanay in badan baynu clips ka daawanay Facebook ama YouTube-ka bal caawa markii aad meesha aad daawanaysay waad fadhiday waad dhuuxaysay xitaa hareeraha maad eegahayn maxaad filimka ka dhex aragtay wallahi filimka ma taqaanaa filim wuxuu ahaa oo reality work ninka suubiyey inaan dib su'aashiis u weydiiya ayaan jeclaan lahaa sababtaa filimka markaa daawanaysa waxuu arkaysaa filim oo run u eg mataqaanaa si wax u dhacayn oo dhan marka filim aad u fiican oo quality fiican uu ahaa dadkana aad ugu farxay haddaad filimka aad eegtid wuxuu ka sheekeynayay bulshada maxay ahayd Soomaalida ee hadda yimi wadamada Westernka sida dhalinyaradu ay u dhaqmaan
marka ma oran kartaa dhalinyaradii maanta daawatay wax badan bay ka faa'iidaysteen aad iyo aad sawirka hore oo ahaa sawirka oo ah dhaqanka dadka halka ku bartay iyo sawirka dambe oo ahaa sawirkii saxsanaa macnaha aan ku soo kornay marka waxaan malaynayaa qof walba inuu ku reebi doono mataqaanaa xasuus badan aad iyo aad bay u wanaagsaneed adigana waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed shukri oo ahaa ninkii dhammaa ee soo qabanqaabiyey xafladdan maxay ahayd meeshan lagu daawanayay filimkii dhig ama dhaqo waxaanan rajaynayaa in uu wadamo fara badan oo kale lagu daawan doono filimkan oo aanu noqon doono filimkii ugu dambeeyey ee maxay ahayd uu samayn doono nabiil bal maxamed shukri maxaad kula talin lahayd nabiil ugu dambayntii waxaan jeclaa shaqada wado inuu sii wado inuuna ka caajisin waxaan u rajaynayaa mataqaanaa dadkii asiga la shaqeeyey kulli iyo dadkii filimka qayb gashay inay mahadsiin cabdirasaaq aad iyo aad baad mahadsantahay weli waxaan kusii dhex jirnaa waxa weeyaan dadyoogii ka soo qayb galay filimkii dhig ama dhaqo walaal magaca cabdicasiis moyo husene cabdicasiis waxaad tahay nimanka maxay ahayd baacmishtarka ee Copenhagen degan bal waxaad iiga warantaa filimkan uu soo sameeyey walaalkeen maxay ahayd nabiil soo aragtaadi niyo filimkan wuxuu ahaa filim mataqaanaa filimada aan dhawaanahan daawanay filimada Soomaaliya filim aad u horumarsan qaabka mataqaanaa high definition ka u suubiyaan videoga iyo qaabka mataqaanaa ay u soo saareen waa qaab la dhihi karo waa international level oo habka Hollywoodka ee filimada u suubiyaan ama Bollywoodka oo kaleeto waxaan dhihi lahaa saaxiibkeen inuu hore u sii mariyo fikirkaas qisada filimka uu ka hadlayay waxay ahayd qiso aad cajaa'ib u leh oo soo jiidatay dhammaan dadka dhalinyarada ee dumarka ragga dadka daawanaya dhammaantood aad ugu reeqan casharka koowaad ay gabdhaha ka baran karaan filimka wuxuu ka mid yahay in marka hore wiilka ay wada sheekaysanayaan mise ay rabaan inay guursadaan inuu noqdo wiil ka soo waantoobay suuqa dhalinyaranimada diyaarna u ah guurka salaadiisa iyo dhaqanka qoyska looga baahan yahay iyo mas'uuliyadda qof qaadi karo taas waxay suurtagelin kartaa in qoyska uu ku dhismo burburna uusan ku imaan guurkaas filimka haddaad gelisid aad eegtid xagga maxaa la yidhaahdaa aad qiimeyn ku samaysid oo qiimuhu noqdo 1 ilaa 10 halkee gelin lahayd filimkaas filimkan waxaan geyn lahaa 10 waa dhaafin lahaa filimkan Oscar ayaan siin lahaa dadka aktarada khaasatan gabadha filimka dhigtay waxay ahayd gabar mucjiso leh waxaas kale waxaan diyaar u nahay anagana wixii fikra wixii waa aragnimo ah inaan siino aad baa mahadsantahay adaan mudan weli waxaan kusii dhex jirnaa waxa weeyaan dadyoogii daawanaya filimkii qiimaha badnaa ee dhaqo ama maxay ahayd dhig bal walaalo waxa magacaaga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxiin Axmed Yuusuf kuna magac dheer Cirbay xageed degantay halkan Copenhagen yes maxaad u aragtaa filimka maanta caawa daawad runtii waxaan dhihi lahaa filimkan mar hore ayaa loo baahnaa in la keeno waa la soo daahiyey waa filim aad muhiim u ah waayo wuxuu ka turjumayaa ama si run ah uga faaloonayaa arrimaha ka jira qurbahan aan ku noolnahay marka waxaan dhihi karaa wuxuu waxtar weyn ayuu u leeyahay hablaha iyo raggaba gaar ahaan xaaladaha waqtiyada dambe lagu jiray filimka maxay ahayd wuxuu ku baxayay inta badan af Ingiriisiga dadka dhalinyarada waxaad moodaysaa in af Ingiriisiga aad u wada fahmayeen dadku aad bay u qoslayeen marka waxyaabay dadka ku qoslayeen mid kamid ah ma sheegi kartaa waxyaabay dadka aad uga qosleen wallahi filimka intiisa badan meel xun kuma aysan jirin marka laakiin runtii filimka aad iyo aad ayuu waxyaabo badan uga hadlayay waxyaabo kamid ah majaajilada oo kale for example yarka kale sida uu jilayay ee gabadha kale si habka ay u matalaysay qaabka dadku inta badan intaas ku qoslayeen iyo sida exactly loo keenay xaaladda markaas jirtay ay ka hadlayaan dadku intaas bay ku qoslayeen aad baa mahadsantahay waxa weeyaan hadda gabagabada aan ku sii jirnaa bal haatan waxa aan halkan ugu yeerayaa waxa weeyaan ninkii dhammaa ee filimkan ka dambeeyay oo ahaa aabihii filimka waa nin da'yar waa nin maxay ahayd waddankan hore u joogi jiray waa nin dadka oo dhan aad u yaqaanaan marmarkaa waxaan leeyahay ku soo dhow maxay ahayd nabil waa mahadsantahay cabdirasaaq aad iyo aad baan adiga iyo maxamed shukri iyo dhammaan dhalinyarada reer Copenhagen ugu soo dhaweysay magaaladan aan idinku mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka ma aragtay reer Copenhagen iyo dadka reer Denmark oo dhan waliba qaarkood ay ka yimaadeen maalmo inay ma aragtay ka soo qayb galeen filimka aad iyo aad baan ma aragtay ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Cabdicasiis iyo Saciid oo dhalinyarada ila socday
marka waxaa jirtay horta filimka markaan soo qaadayno waxaan isleen dadka amay fahmi waayaan bal sida u aragtay caawa dadkii oo dhan baa wada qoslayay way wada faraxsanaayeen qof walbana filimku ku faraxsan yahay hope dadkana daawanayo aan weli daawan inayna daawadaan markaan imaano ma aragtay goobahay joogaan nabiil haddaan ka dhex galo filimku wuxuu ahaa filim aan hore Soomaalidu aanay u arag waxa kale oo aad taabatay waxyaabaha cajiibka ah ee bulshada reer galbeedka ee Soomaalidu ku dhaca marka goorma ayay kugu dhalatay in filimka noocan oo kale aad samaysid wallahi filimka markay ugu dhalinaysay ama filimka markaan inaan sameeyno waxaan u sameeynay inaan salaada iyo aan waanino dhalinyarada aan ma aragtay aan waan ahaan uga dhigno filimkii markaan isla aragnay in ma aragtay salaadii iyo arimaheeda ay gaaban tahay waxaan in filim ahaan aan u sameeyno ma aragtay sheekadii aan seedisno sidii baan u dhisnay waxaana igu dhalatay in muddo ah waan doonayay inaan filimka sameeyo bal laakiin alxamdulillah ugu dambeyntii waxaan helay dad ila shaqeeyo sida Axmed Showtime Siyaad iyo gabadha aad arkaysan Sumaya iyo Kaltuun Bacdo marka aad baan ugu faraxsanahay sida balaarnay looga soo qayb galay maxaa la yiraahdaa filimku dhalinyaro matalaysay dhalinyaro matalaysay waxaan dhalinyaro qasab maxaa la yiraahdaa Ingiriiska degan marka isku soo ururuntoodii intee lagba ku qaatay waxay ugu qaatay ilaa in muddo 3 bilood gaarayso oo aan raadinaynay qof karakteriyada ama aktarada qof u qalma aan u raadinaynay intaas in muddo ah bar alxamdulillah markii ugu dambeysay waxaan helnay dhalinyaro very active ah oo aktarnimada ku wanaagsan oo filimkii laftigooda fikrado badan ku soo kordhiyay maxaa la yiraahdaa waxa jirtay gabadh filimka matalaysa habluha Sumaya habluhuna aad bay uga xishoodaan xagga kamarada oo imika markaan doonay inaan weydiino filimka sideeba u aragtaan aad bay uga xishoonayeen inantu sideebay uga qayb gashay filimkan ma noo sheegi kartaa Sumaya waa qoraa waxay qori jirtay buugaagga iyo arimaha alaabta ku saabsan waxaana ma aragtay Sumaya markaan kulannay waxa ay keenay leeyahay Abuukar Cawaale oo iskool ay dhigan jirtay kooga gabar ma wax qorta oo jecel ma aragtay inay qaybka ay ummadda Soomaaliyeed ay qayb weyn dhinacooda ka qaadato ka dhex muuqato ugu dambeyntii filimkan waad aragtay adigu waa daawatay Caawa Cabdirasaaq waa filim ku jirta diintii dhaqankii waana waxyaalo aad u fara badan oo ma aragtay ay ummadda Soomaaliyeed ay ka maqnayd waxaanu jecelnahay inaan sii wadno sidoo kale nagu dhamaaday aan soo gaabin doono insha Allah waxaan rabaa inaan ku sheego markaan filimka sameeynay ayaan waxaan yiri okay dadka Soomaaliyeed waxay qaataan logooyin iyo waxyaalaha ay sameeyaan dadka ajnabiga ah marka si aan u soo xasuusino dhaqankooda ayaan waxaanu sameeynay dharkan hadda Ingiriiska aad baa looga helay sidoo kale Nairobi Dubai meel ay sida wali malaha haddana alxamdulillah Scandinavianka Sweden iyo Denmark dukaanka ugu horeeyo aan dharkan aan ma aragtay hadda aan in jumlada naga gatay oo waxay noqonaysaa sida aad ka heli kartid xataa dharka Beer Camel waa dukaanka Gamas oo ma aragtay maamulaheeda xataa uu nala taagan yahay dharkii uu la hor taagan yahay Copenhagen waxaan filayaa dadka reer Copenhagen inay ka heli doonaan dharka ha noqoto noocay noqoto dharka cusub ee soo socda hadda sanadkan insha Allah sidoo kale ma taqaana alaabta uu noo keenay Nabil ayagoo kala duwan t-shirtada dukaanka Gamas ay ka heli karaan qafiskeeda reer Copenhagen iyadoo ma taqaana Gamasna uu hayo dhar kale oo ma taqaana hidaha dhaqanka oo tiro badan uu soo gudbin doono waxaan hadda u mahadcelinaynaa saaxiibkeen Nabil idea uu keenay loogaha Gamasna waxay soo wadaan loogaal kale barnaamijka marka Janiska siiseen fursadiina aad ugu mahadsantiin waxaan leenahay ku soo dhawaada Denmark hadda tiin asxaabta UK Nabil oo markii hore ahaa reer Denmark waxaan leenahay dib u soo dhaw asagoo nagu soo kordhiyay filim cusub iyo fikir iyo fashion dhara intaba anagana waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhaw Nabil Copenhagen waxaan diyaar ku leenahay mataqaana kula shaqeyn aad iyo aad baa mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa maxay ahayd Nabil oo filimka sameeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkaasina waa Copenhagen oo aan kala soo hadlay waana Cabdirasaaq